laba farriimood baan jeclaan lahaa inaan gudbiyo mid hay'adaha amniga iyo waxaan u gudbin lahaa ciidamada ku hawlan xaaladda amniga midna waxaan u gudbin lahaa bulshada sharafta iyo karaamada leh bulshada sharafta iyo karaamada mudan qaaliga ah ee wadaniyiinta ee laxjeclada leh waxaan odhan lahaa oo u gudbin lahaa nabadan wanaagsan ee ilaahay ina siiyey dhidibada saad ugu aasi lahaydeen mid cagaaran oo horumarineedna aad ugu bedeli lahaydeen u istaaga u diyaargarooba si adkaystaan odhan lahaa waayo habka isbarbardhigga shalay iyo maanta markii aynu eegno dee waan garan karnaa halkaan maanta taagannahay iyo halkii shalay alxamdulilah ilaahay baa ina gaadhsiiyey ee wuxuu aadama ina gaadhsiiyey oo uu keenay maaha marka ilaahay laydhan macaan ee qabow ina siiyey intaan ku shukrino aan ka faa'iidaysanno mid cagaaranna aan u bedelaan odhan lahaa ta kale dhibaatada mar walba soo noqnoqoto oo waxaa jirta wariya saad og tahayba dee shirkan marka la qiimaynayo mar walba dhibaato oo soo noqotaa jirto oo aan aad u adag waa dhibaatada dhulka waxaan odhan lahaa arrintaas xalka loo laayahay saraakiisha iyo xubnuhuba ay ka qayliyayaan maalin walba dhibaatada taagan ee sabti walba shirka jira la soo dhigayo iyadana bulshadayda qaaliga waxaan odhan lahaa fadlan waxaan odhan lahaa waxaan idin leeyahay bulshadayda hadday waalid tahay iyo hadday da'yar tahayba waxaan odhan lahaa dib isugu noqda tusaale ahaan waxaad ka hadli sarraynta sharciga in la ilaaliyo waxaa fariin baad u diribaa ciddii sharciga ku xadgudubta in sharciga laftiisa ay la garami doonto sharciga la marin doono sharciga abaalmarintiisa ay heli doonto waxyaabahaasaa fikira inaad gudbiso laga yaabaa marka la gudbinayo waxaa jira odhaah tidhaahda soomaaliya oo tidhaahda nimbo boogta ku taalbu barbarkeeda xoqaa dadka axsaabaha tartamaya iyo aragtiyaha kala duwan qabaayay waxaa keli ahay sharciga la ilaalin ku saleeyaan aragtidooda siyaasadeed ee ay isku hayaan axsaabaha kale ama axsaabta talada haysa ay isku hayaan keli ay sharcigii u arkaan ilaalintiisii ma ahe sharciga ilaalintiisuna bulshada dhexdeeda wareegyada ka jira ee sharciga in la ilaaliyo muxuu yahay ee aan siyaasad ku salaysnayn nidaamka siyaasadeed iyo nidaamka sharci ilaalintu waa laba kala waji bay leeyihiin marka waxaan odhan lahaa dadka iyaga ahana sharciga ha la ilaaliyo markay hay'adaha amnigu leeyihiin ama hay'adaha sharcigu leeyihiin ma aha in axsaabta tartamaysa unoo keliya loo jeedo ama sharcigu maxaanku idhaahdaa xisbiga talada haya ciddii ka aragti duwan baa loo jeedaa in loo arko ma aha waayo hay-adaha sharciga axsaabta tartamaysa iyo aragtiyaha kala duwan iyo kuwaasi ma aha shaqadoodii maaha waa in sharcigii sarrayntii sharciga la ilaaliyo sarrayntii sharciga hadda tusaale ahaan gawaadhi sharci darraa hadda dhex taallo oo bug lagu soo geliyey magaalada aad bayna u tiro badan yihiin weliba haddaad sii guda gasho oo waxyaabo badan aad sii fiiriso gaadiid badan oo sharci darro ah ayaabaad arkaysaa waxaa kaloo sharci darro ah baajaajta la canshuuray ama gaadhigu noocu doonaba ha ahaadee waa la canshuuray declarationkiisii wixigiisii nidaamkiisii oo dhan uu dhammaystiran yahay 2% baa xataa laga shubay dakhliga taarikana ma wato taarik hadduusan gaadhigii wadanin waa sharci darro waayo looma magac bixinin gaadhiga waxa loogu magac daraya ama magaca lagu tilmaamaya ama lagu calaamadinayaa ma aha warshaddii samaysay ama dalkii sameeyey meehe waa taarikada ama lambarka uu ka qaato xafiiska gaadiidka inta uusan lambarkaa haysaninna waxa weeye intuusan lambarkaa haysaninna gaadhigu ma aha mid sharci ah marka sharci darro waxa la leeyahay waa waxyaabo aad u fara badan oo ay bulshadu ku dhaqanto oo maalin walba dhaco bulshada dhexdeeda ka dhaca dhulkan la isku haysta ee la isku leynaya lafteeda waa sharci darro marka yaan aragti siyaasadeed oo kala duwan uun lagu cabirin markii la leeyahay sarraynta sharciga ha la ilaaliyo axsaabaha kala duwan ama dadka fikirada kala duwan qaba laftooda iyagana baaqaasaan u diri lahaa ugu dambayn hay-adaha amniga ama ciidamada kala duwan ee booliska saraakiisha sare ha noqoto saraakiil xigeenka ha noqoto xubnaha ha noqoto fariintan iyagana u diraya waxay tahay warshaadhkaan xidhannahay eed xidhan tihiini ma aha midaan inagu leenahay waa sharaftii bulshada shaadh la inooga dhigay waxaan helay fursad qaali ah in aad labisato sharaftii bulshada oo shaadh kuu noqoto waa fursad aad qaali u ah laakiin aysan dadku fahmi karin dad badani qof aragti fog oo dheer la mooyee oo ilaahay garansiiyey mooyaane marka maadaama waxaan leeyahay aynu sharaftii bulshadu shaadh inoo noqotay oon huwannahay adeega aynu bulshadeenna siinaynaayo ha noqdo mid akhlaaq huwan
bulshadeenna lafteennana iyadana inagu shaqo ma qaban karee iyada aynu wacyi gelinno aynu ka dhaadhicinna inay ilaashato nafteeda iyo maalkeeda amnigeeda say u ilaashan lahayd iyada aan lex jeclada lahaanshaha aan dareensiino